بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلمكيني وإنجنير مبارك محمد. عشركي هوري waxaan kaga soo hadalnay present perfect tense. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay present perfect continuous tense. Continuous asiidar marka waa tensigii afraad ama waa casharkeeni afraad maanta. Present perfect continuous tense is used for an action which started in the past and is still going on. Present perfect continuous tense waxaa loo isticmaalaa is used for an action fal which kaas oo started in the past bilowday in the past wax la soo dhaafay and is still going on welina sii socda. macnaha waxaa waaye present perfect continuous tense waxaa loo isticmaalaa fal oo soo bilowday pastiga in the past waa fal wax la soo dhaafay laakiin oo welina socda. falkan waa la soo dhaafay ilaa hadana waa socda. fal soo bilowday waqti hore ilaa hadana sii socda. formula qaacidadiisa marka qaacidadiisa waxaa waaye subject plus have has plus been plus verb plus ing plus object. Okay, and marka I, we, you, they waxay isticmaalaan have. casharkii hore ciddii ila socotay kullo ila socotay kii hore kan wuxuu uga duwan yahay kaliya ing iyo been. inta kale waa iskaga mid kii hore ee ahaa present perfect tense kan, laakiin maadaama continuous uu yahay waxaa sii dheer continuous haddaa aragtid waxaa kugu soo dhacaya isla markaas ing inuu wato tensigaas ing. marka waxaa kaloo sii dheer marka present perfect tense present perfect continuous been waxaa lagu soo daray marka oo dheeri ah. hadda kii hore wuxuu kaga duwan yahay present perfect tense wuxuu kaga duwan yahay kan been iyo ing. okay, inta kale waa iskaga mid he, she, it waa iskaga mid macnaha have iyo has waa iskaga mid, laakiin waxay kala duwan yihiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin kaliya ing iyo been. okay, tusaale aan sii galna marka I have been learning English for 1 year. I have been learning English for 1 year. marka I have been learning English for 1 year. aniga Englishka waxaan baranayay for 1 year hal sano. I have been learning macnaha waxaa waaye hal sanaad baranaysay ilaa haddana waa sii wadaa. macnaha qaacidada waxay ahayd wuxuu ka laabsan in which macnaha waxaa loo isticmaalaa aan dhahnay present perfect tense fal oo soo bilowday pastiga ee haddana sii socda. taasoo macnaheeda marka I have been learning English for 1 year. English inaan soo macnaha I have been learning English for 1 year. English waxaan soo baranayay hal sano. that means ilaa hadda waa sii wadaa waa baranaysa macnaha ma aadan joojin weli. I have been learning English for 1 year. hal sano Ingiriisi baranayay. okay, su'aalaha labaad waa iska fahmi kartiin. either waa subject, have waa be ama verb to be, beenta waa dheeri yani waa qaacidada waan soo sheegnay plus verbka oo learning ah, verbkii oo lagu daray ing, learn oo verbka caadiska ah asalkiisa ing lagu daray learning plus objectihi oo English wixii la baranaya. okay, tusaale labaad they have been playing football since last year. they ayaga have been playing football kubadda cagta waxay ciyaarayeen ama banooniga waxay ciyaarayeen since last year laga soo bilaabo ilaa sanadkii hore. macnaha ilaa hadda weli ma joojin waa ilaa xilligaas ilaa hadda banooniga weli waa dhiilayaan macnaha waa wadaan. okay, tusaalaha saddexaad she has been speaking since this morning. she ayada has been speaking way hadlaysay since laga bilaabo this morning ilaa saaka. macnaha waxaa waaye hadalka weli ma joojin waa saaka say hadal u bilowday ilaa iyo hadda waa wadaa hadalkii. she has been speaking since this morning. okay, marka
aan aragna markii laga dhigayo question laga dhigayo marka waxay noqonaysaa marka have I been learning English for 1 year? Have I been learning English for 1 year? miyaan baranayo luqadda Englishka hal sano? marka waxaa la soo hormarsiinayaa have verb to be ga ama be ga soo hormarsiinaya oo ah have. waxaan leenahay marka have I been learning English for 1 year? aniga ingiriiska hal sano miyaan baranayay? Okay. Have they been playing football since last year? ayaga kubadda cagta miyay ciyaarayeen laga soo bilaabo ilaa sanadkii hore? Okay. su'aalaha saddexaad, has she been speaking since this morning? Has she been speaking miyay hadlaysay since this morning ilaa saaka? Okay. aan aragna marka akhyaaraya haddaad rabto inaad barato bahalkan asagoo dhammaystiran ee faahfaahin ah, insha Allah buugaagta ingiriiska ee grammarka waa ka buuxaan internetka waad raadsan kartaa. Okay. aan fiirina marka negative marka laga dhigayo negative diidmo. Okay. diidmo marka laga dhigayo marka waxaan leenahay I have not been learning English for 1 year. I have not been learning aniga ma baranaynin Englishka for 1 year hal sano. I have not been learning English for 1 year hal sano ma aan baranin Englishka luqadda Englishka. Okay. ama English. And they have not been playing football since last year. They have not been playing football since last year. ayaga kubadda cagta ma aanan ciyaaraynin laga soo bilaabo ilaa sanadkii hore. Okay. su'aalaha saddexaad, she has not been speaking since this morning. She has not been speaking since this morning. she has not been speaking ma hadlaynin ayada laga soo bilaabo ilaa saaka. ma aan hadlaynin ayada ma aan hadlaynin laga soo bilaabo ilaa saaka. Okay. casharkeena kan aad u fududaa kan because of kan waxaa fududeeyay casharkeenii hore wuxuu ku saabsanaa saddexaad present perfect tense. kii hore waan soo aragnay kaasaan si fiican xoolo soo sharaxnay waa la soo arkay kaas. maadaama kaas la soo arkay kan kaliya waxaa meeshan aan ku soo biiray kaliya beintaas iyo ing daas kaliya, inta kale waa la yaqaanaa. intana aan ugu soo biirtay hadda intaan waa fahmay bein iyo ing daas. ing hore waa loo soo arkay oo waxaan ku soo aragnay present continuous tense tense-gii koowaad aan ku soo aragnay. Okay. marka inaan kusii dheeraado ma rabi insha Allah. maanta casharkeena inta ayuu ku egyahay. ha ilowina fadlan inaad subscribe garayso si aad u socoto casharada kale ee taxanaha insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.